السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داوديال إذل كين ميل كستو أجوتان كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay ee gayiga Soomaaliya macluumaadka aan idiiso gudbin doona hadii Allah uu dalo raali ka noqdo waxa qayb ka noqon doona boqolaal asgari oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise ayaa heegankii ugu sareeyay ka galay gobolka dawlad deegaanka Soomaalida aaga magaalada Diridhabe iyo deegaanada xuduudda ku yaala ee Somaliland isku dhac u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Samaroon ayaa laga cabsi qabaa oo xaaladdu waxay maraysaa halkii ugu sareeyay magaalada la yiraahdo Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal waxa ku sii qulqulaya odayaal dhaqameed la sheegay in ay yihiin beesha Ciise kuwaas oo malaha abaabulaya in dib loo soo nooleeyo xeerkii buugga Ciise ee dhiiga badan oo ku daatay mid kamida ugaasyada ugu facaweyn beesha Ciise ayaa sidoo kale wuxuu gaaray magaalada Diridhabe waxaan halkaas ku soo dhaweeyay ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim Wacays waxay wararka macluumaadku tilmaamayaan in labada ugaas ay ka wada hadli doonaan qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arinta la xiriirta xeerka buugga Ciise iyo in la abaabulo ciidamo xoogan oo beesha Ciise ah si ay ula wareegaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan ee beesha Ciise ay tirsanayso haddii xeerka buugga Ciise la soo bandhigo horeysaan idin kugu sheegay daawadayaal darbaaxa culus waxay ku tahay Somaliland iyo beesha Gudubirsi labadooduna ma rabaan in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo taa bedelkeedana waxay rabaan in wada hadal iyo wada xaajo lagu dhameeyo xeerka buugga Ciise oo tabashooyin xoog leh ay ka jiraan haddaba aan dib ku xasuusiyo qodobo dhowr ah oo ku jira xeerka buugga Ciise oo beesha Samaroon ay diidan tahay xeerka buugga Ciise waxa ku jira qodobo waaweyn oo sheegaya in deegaanada ku yaala xeebaha sida Lowyacade Lughaye Ceelgaal Saylac Heemaal Durdur Habaas Dixda Sheekh Awaare Tuulada Cabdiqaadir Galmadoobe iyo eeriyada deegaanada hoos yimaada Boorame ay degto beesha Ciisana ay leedahay sidaas lamida xeerka waxa ku qoran hadii beesha Ciise ay u baahato inay ka go'do Somaliland inay dhisan karaan maamul iyaguna maamulkaas waxay ula magac baxeen Guban State haddaba mowduuca waa inaa inta ila fahantaa Samaroonku marka waxay diidan yihiin iyaguna in beesha Ciise ay sheegato dhul aysan lahayn sida tuulooyinka Heemaal Habaas Lowyacade Lughaye Saylac Ceelgaal Dixda Sheekh Awaare Boorame koonfurta magaalada Boorame galbeedka oo 7 saldhig ay ku yaalaan iyo deegaano hoos yimaada iyo eeriyada deegaano hoos yimaada tuulada Durdur dhammaan deegaanadaas waxay leedahay beesha Samaroonna annaga ayaa degna oo Ciisaha kaliya waxa loo ogol yahay inay degaan Saylac iyo deegaano dhowr ah hoos yimaada oo dabcan aan xilligan cudud iyo awood badan lahayn xaaladdu halka iska qaban laadahay waa halkaas odayaal dhaqameed dabcan beesha Ciise mug iyo miisaan ku leh oo marka la eego taladoodu ay geed ka go'an tahay baahada kulan waxay ku leeyihiin magaalada Diridhabe waa saldhigga odayaasha dhaqanka beesha Ciise waxa la filayaa inay soo saaraan go'aano waaweyn oo ka dhan ah beesha Samaroon waxaase laga cabsi qabaa markuu Ramadaan ku dhamaado inay xaaladdu dib u soo cusboonaato oo dagaalku dib u soo cusboonaado xaaladuna ay gaarto meel aan waxba laga qaban karin in xaaladdu ay faraha ka baxdo sida ay dad badan aaminsan yihiin laakiin si walbaba ha ahaatee xaaladda hadda ka jirta gobolka ayaa saamaxeen in dagaalo ay beesha Ciise gasho maadaama hub fara badan ay u baahan tahay sida dad badan aaminsan yihiin qodobadeena kale ayaynu markan eegaynaa xaaladda bariga dhexe wali waa aad bay halis u tahay sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya huwanta isbahaysatay ee Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan hadda wararka kale waxay tilmaamayaan in reer galbeedku ay dagaalka ku soo biirayaan maadaama Iiraan ay xirtay marinka Hormuz oo marin muhiim ah oo 20% shidaalka caalamku uu maro doonyaha dheereeya oo 70 gaaraya ayaa la sheegay inay bambaanooyin halis dhigeen gunta hoose ee badda taasi oo keenaysa in markabku marka uu soo maro uu meesha ku basbeelo Iiraan goordhow waxay quusisay markab laga leeyahay Thailand kaasi oo la sheegay in uu si sharci darro ah damcay inuu ku dhuumaaleysto ama uu si sharci darro halkaasi uga soo gudbo kadibna uu soo galo marinka Hormuz laakiinse markuu marinka madaxaasa oo la soo galay ayaa dab la qabadsiiyay يعني waxa lagu dhuftay laba diyaaradood oo mid kamid ay tahay diyaaradda Shahiid halkaas ayuuna markabkii ku basbeelay sida laga dheehan karay sawirro laga soo qaaday xaaladdu marka hadda waxay u wareegtay dhinaca dhaqaalaha Mareykanku wuxuu leeyahay maraakiibtayadu si khasab ah ay halkaas uga soo gudbayaan halka Iiraan ay leedahay cidii halka ka soo gudubta wixii ka raaca iyada mas'uulka ah
saaxiib yal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin. Sharaf iyo karaam haddaad nala dhamaysatay muuqaalka hadduu ku soo gaaray sii share gare oo like saar, aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb. Meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal soo dhawaada.